bangiga KCB Bank ayaa in ka badan 200 oo qoys waxa uu maanta u qaybiyay deeq raashin oo isugu jirta raashinka qudulduriiriga noocyadiisa kala duwan. Dadka la siinay raashinkani ayaa lagu soo xushay qaab ay iska kaashanayeen bangiga KCB, hay'adda NDMA iyo sidoo kale gudoomiye xaafadiyaalka. Maamulka bangiga KCB ayaa faahfaahin ka bixiyay raashinka maanta ay bixiyeen. aniga waxaa la yiraahdaa Siyaad waxaan ka socdaa bangiga Kenya Commercial Bank. KCB waa maqasheen Soomaha ma taqaanin KCB waa bangiga magaalada ku yaala Soomaha meeqa bangiga ku taal Wajeer yaa yaqaana waa badihiin Soomaha haddan ka hor bangiga raashin inkaan ma jira saana kor KCB sida in ku keenta ma jira KCB saas u jeediba maanta raashin waxaan soo gaarsiinay ka kooban bariis iyo sokor iyo saliid iyo majani iyo wixii la socdo dhan loorkaas nin walba gudaha ku wada jiraan loorkii nin walba loogu tirigalay marka raashinka iida maanta waxa loogu tirigalay 250 qoys in la soo gaarsiiyo loogu tirigalay nin walbana ogtiin magacaha in la soo wada qoray oo magacaha ay soo qoreen bangiga anaga naga imaadeen magacaha waa iska imaaday NDMA Irelands iyo County Commissioner's Office ila the administration ayaa iska imaaday gaar ahaan anaga dadka banna qaada si dadka loo kala saameeyay oo abaarta ay u saameysay waxay la anaga waa ognahay dibka aan ku jirno maanta magaalada wadanka county-ga ama wadanka oo dhan dibkan hay waa ognahay inkastoo bicshirada iska nahnay dadka aan bicshirada aan la sameeyna waa dadweynihiin aniga idinka soo baaha idinka badaas dib qabtiin anaga bicshirada ka karina marka idinka baahantiin wixii awoodayna waa inaan la marno waay marka 10 bilyan soo dhaafay wiiga hadan kiisi kala raashin maxaan geynay meeshan ilmahan agoomaha oo ama ayaan geynay waqtiga soonka waa ogtihiin 500 ruux ayaa inta raashin ku siinay waa ogtihiin Soomaha mar walbana saas aan ku celinaa waxa yeelay dad yani alaba waxaan fiirinaynaa baahida dadka asqaba intaan wax gaarsiin karno waa gaarsiin karnaa marka dadka saas u kala daran yahay waxa yaqaana Irelands iyo the local administration chief iyo diyaalkay waxaan yaqaan marka ayaga magacaha soo qoray listiga iideed un baan dadka ugu yareeyna raashinka saas la leensiina marka wixii kale aan helnana waa in keenayna haddana iskuulahan waxyaalo fara badan aan gaarsiinay hadda jarba marka ilmaha agoomaha ama rajiyaalka ama saboolaha iskuulaha KCB waa ka bixisaa waa taqaaniin Soomaha sanad walba waa qaadana intaas waxaan u yeelaynaa dadweynaha inaan kor u soo qaadno wixii tooraanka ayna dhanka kale gudoomiye ku-xigeenka misna DC-ga bariga Wajeer ayaa shacabka ugu baaqay in raashinkaasi aysan sii iibinin kusema kwamba hata nyinyi mpe community ile ambayo mnafanyia biashara kitu kidogo kama shukran, na sisi kama serikali tumeshukuru sana, na wananchi ambao mnapata hichi chakula tafadhali muende mkitumie kwa wale ambao wanastahili kabisa. Mtu akipata hichi chakula usiende kukiuza. Kuna wengine wako na tabia ya kwenda unapata unaenda kuuza. Tafadhali KCB hijatoa kwa hiyo madhumuni, imetoa kwa sababu wewe ambao uko na njaa uweze kunufaika. Enda upike, watoto uko nao uwapatie. Mzee ako nyumbani ama mama ako nyumbani, tafadhali hichi chakula kifike nyumbani. Najua tuko wengi ambao tunahitaji chakula, lakini sio wote KCB ingeweza kutimizia. ugu dambeyn qaar ka mid ah dadkii ka faa'iideystay raashinkaasi ayaa u mahad celiyay bangiga raashinka maanta u keenay ee KCB. Abdi Maxamed maanta waxaan meesha u imaanay raashinka KBC aan u imaanay waa maxasan yihiin boqolkiiba maxadaan u celinaynaa maanta waxaan u imaanay meeshan raashinkan waxaan u imaanay raashinkan ay bixisay bangiga uu bixiyay marka Allah ma hadda iskala ay kar waa ma celinayna insha Allah ma celinayna KCB Bank ina raashin la siiyo abon baashi Ahmed Ali dhaa raashin ana la siiyo ma qabnaa